فلان موجك كأسكو قادنا. Welcome to Funding Packages News. Breaking news. Goldstar Live has become first prop trading firm in Asia and Africa to land a contract with big investors. This gives an equal opportunity to every trader who can make 5% profit in a month from Forex market. Goldstar Live is a company based in Zambia, Germany, Turkey and Oman. This amazing company offers 2 different types of live accounts, a $50,000 diamond package live account and a $25,000 silver package live account. Traders from anywhere in the world can take advantage of this opportunity. To become a member, visit the Goldstar Live website, www.goldstarlive.com. So what waxaan sameynaa maanta waxaan dul mareynaa codsiyo fara badan oo yimid oo kamid ah in iyada la marayo ay dadka qaarkood yani ay aqoon u lahayn laga yaabo inay magaranay ku adkaatay inkastoo wax easy ay tahay sida caadiga istibida la marayo oo aan filayo qof walba intuu ku jira waa qof trader qofka trader kana awilka mar horena wuxuu u sameystay diiwaangelino kala duwan so marka intana sida caadiga same way intii uu xagga sameyn jiray uu intana sameynaya so balse waxaan isku daynaa inaan dul marno website-ka qofku markuu soo galo wuxuu taabanaya intuu wuxuu ka raadinayaa register buu taabanaya markii uu qofka registerkii uu sameeyo halkan wuxuu dooranayaa yani username-kiisa wuxuu noqon karo so aanu dhahno Goldstar Live test so inta inay noqoto email-kaas oo 2 jeer la qorayo info I hope email kan ma jiro so info@goldstarlive.com so it's very easy wallahi ma garanayo dad fara badan baa xogaa yar teamka support-ka ay soo gaarsiiyeen in yani ay su'aalo badan ka soo celiyeen halkaas maxaan ku sameeyaa arintaasna xal baan u raadinaynaa insha Allah ta'ala anagu hadirtaan record-kana uu noo socdo soo ma socdo record-kii uu socdaa okay record-ku uu socdaa so kadibna meeshaas magaciisa koowaad buu gelinayaa magaciisa koowaad wuxuu noqon karaa iska dhahno support magaca aabiisna waa Goldstar Live فلان أذنكنا هجينا Goldstar Live لكن يعني just tusaale weeye halkan password ayuu ku doorayaa mid kan inaad dooranaysaa maya dhigi kartaa haaba dhigi kartaa anagu haabaan dhahaynaa walaalo tusaalehan tusiisi ma naga arki karno so halkan telefoonkiisu qofka gelinaya addresskiisu gelinaya waad u jeedaan calaamadan xidigta haday saaran tahay waa qasab inaad buuxisid laakiin way wanaagsan tahay inuu qofka traderka informationkiisa uu meeshan geliyo because hadhowti si lacagta markaan soo dirayno qofkii hadii ciladi dhacdo ama bankigiisu shaqeyn waayo si mobilka aan kala xiriiri karno sida mobilka kala xiriiri karno war qofkan canjeerada dubayo waa maxay so magaaladu dooranaya wadanku dooranaya wadanka bal aanu dhahno wadanka Germany so adiga wadanka joogtid baad dooranaysaa kadibna accept baa leedahay kan baad aqbalaysaa terms and condition-ka because intaada aqbalin laakiin wala la soo akhriso in aad soo akhrisatid maxaa yeelay intaadan isdiiwaan gelin step-ka ugu horeeyo SMS laga rabo website-ka inaad si fiican u soo akhrisatid si fiican u soo fahantid qoraalada dhan aad soo fahantid wixii ay ka soo dhacdo kadib markaas kadib aad isdiiwaan gelisid ma marka diyaar noqotid ba isdiiwaan gelinaysaa diyaar noqotid so waan aqbalay waa leedahay bal isdiiwaan geli baa ku dhahaynaa so qofka isdiiwaan geli markuu yiraahdo haduu qalad u soo saaro qaladkii uu saxayaa haduu sa qalad u soo saarina yani uu gudbaya okay so
nagu soo celiyay so accept waa leenahay maxaa yeelay so okay waa dareemaysin markii ugu horeysa qofkii uu ku soo laabtay haddana uu fiirinaya wax gaduud inuu soo saaro wax gaduud casaan intuusan soo saarin mar labaad haddana waxaa leedahay waan aqbalay yacni sababtu saas ku weydiinaya marmarka qaarkood waxay tahay inaysan jirin waxaa jiro robot automatic isku diiwaangelinayo yacni meelaha diiwaangelinta oo dhan automatic isku sameeya so qofkii stepkii koowaad muxuu sameeyey wixii oo dhan buu soo fahmay haddana muxuu sameeyey wuxuu fahmay wuxuu fahmi waayey uu su'aalo ka soo celiyay support teamka telegramka buu weydiiyey inta badan telegramka qoraalka meesha uu joogaya kaas waa wanaagsan live chat supportka haddii dadka bataan inkastoo ayamahan dadka ay aad u badan yihiin oo culays badan uu nasaaran yahay teamka supportkana uusan aad u badnayn telegramka qoraalka uu joogaya balse teamku waxay sidoo kale isoo gudbiyeen waxay yiraahdeen dadka inta badan assalaamu calaykum bay soo qorayaan so wax su'aala ma soo raacinayaan haddana maxay soo qorayaan bahda Gold Star Live wax su'aala ma soo raacinayaan walal qofkii su'aal qabo hala soo xiriiro su'aashiisa asagoo toos u weydiinayo direct u weydiinayo so su'aashii uu ka soo bogtay wuxuu diyaarsaday wuxuu fahmay wax walba wuxuu diyaarsaday lacagtu isku diiwaan gelin lahaa ama akoon ku dalban lahaa markaas ka bacdi wuu isdiiwaan geliyay markuu isdiiwaan geliyay haddana stepka kale ku xigo waxay tahay inuu paymentigi sameeyo paymentigi markuu saa u sameeyo wuxuu la soo hadlayaa teamka yacni inuu sameeyo waa la soo gudbinayaa haddana markaas ka bacdi qofku wuxuu tagayaa documenti my documenti buu tagayaa my document halkaas wuu ku dhufanayaa so markuu ku dhufto inta username baa ku jiro laakiin waan ka bedelinaa teamka IT-ga ayaa waxay jirto culaysyo fara badan dhinacaas ka jiro shaqada email bay ku qorayaan laakiin adinka laftirkiina hadeertaan qofkii doonayo kaleeto emailkiisu ku qoraya username ay ku qorantahay laakiin emailkiisu ku qoraya emailka markuu ku qoro waxaa fududaanaya qofkaas dhaqso in akoonkii loo dalbo buu fududaanaya because paymentigii email buu la gudbiyey so kadibna passaportkiisa iyo proof addresskiisa passaportkiisa ama ID-giisa ama whatever qaabku qofka brokerkiisa ga diiwaangeliyo same yani wax kale laga rabo male maxaa yeelay isku KYC baan isticmaalnaa so qofkii markuu intaas sameeyo patient baa laga rabaa adiga 2 days insha Allah taala in aan akoonkiisa ugu dirno inkastoo hadda dadka inta badan hal maalin aan isku dayno oo yani culays fara badan nagu ahayd laakiin waxaan isku daynaa inaan saas ku sii wadno insha Allah taala so qofka sidoo kale to withdraw uu tagi karaa markuu profit sameeyo way laakiin profit markuu sameeyo withdraw uu tagayaa withdrawga markuu tago wuxuu sameynayaa meesha wuxuu gelinayaa percentage ku withdraw sameynayo waxa ugu yar waa 5% hadduu 5% gaaro profit ku withdraw sameynaya anytime uu gaaro 5% haddaba su'aashan way soo laalaabataa anytime uu gaaro 5% withdraw uu dhihi karaa hadduu khasaaro ka war ustaadi oo isdurowna dhaxo alaha aan u soo laabana walaal so waxaan u xirnay meesha qofkii dad badan oo ka go'ay waxa jira inay soo laabtaan rabo laakiin waxaan codka walaal iska xir su'aalaha u gudbina 5% kan markuu gaaro unbuu withdraw dhihi karaa so hadduu 5% uusan gaarin ama khasaaro markuu inuu 5% mar labaad soo gaarsiiyaa oo isuu withdraw yiraahdo subscription kana markaas uu bixinaya waana sababta aan anaga marka horeba dad u dhahno haddaadan trader ahayn awoodi kara 5% bishi inuu sameeyo walaal haysdiiwaan gelin 5% bishi haddaadan samayn karin haysdiiwaan gelin so username ku gelinaya namekiisu gelinaya emailkiisu gelinaya telephone numberkiisu gelinaya MT4 kiisu gelinaya wuu dirayaa waxaa jira teamka withdrawga ka shaqeeyo waxay fiirinayaan MT4 kii systemkii ka fiirinayaan qofkan profitkan uu soo dalbada ma saxba ha okay qofkii bishii hal mar baa loo diraya so haddii cilad iyo wax ay dhibaato qabsato hel buu ka dalban karaa so hel buu ka dalban karaa tigid buu dalbanayaa kadibna waa laga caawinayaa email baa loo soo dirayaa waa la caawinayaa so marka waxaa jirto intaas waa systemka intaas way very easy so marka waxaa jirto fikro dad ay soo gudbiyeen ay yiraahdeen oo waxay yiraahdeen
aanu sameyno qaab aanu dhahayno maadaama anaga awoodii waqtiga aynan wada haynin oo yacni shaqada ay badan tahay aanu sameyno dadka meesha hore isku diiwaangeliyey oo kaleeto aanu siino chance ah qofkii qof kala caawiya qaabku isku diiwaangelin lahaa qaabkii paymentiga qaabka documentiga u sameyn lahaa wax walba ka caawiyo oo qofkaas markuu isdiiwaangeliyo oo akoonkiisa helo aanu siino qofkaas $10 oo hadiyada calaa qof يعني فكر كاس اللي سوي كذي ما قرنا فكر كاس إنه فكر في عنتهاي بل سؤال اللي سوي كذي هدي هذا ما فكر في عن وقادنا هدي كلنا ما كنت بينا so أنت سؤالها مركب وجود بين وحن جعلنا لها بالأرنتا سنان وعدينا محين لا تهاي فكر كاس اللي سوي كذي أنت كقارئ أحيانا أكون ك قفكي عاوية قفكي استوان كلي وقفك العاوية مثل سميننا وكحرنا يعني هبل سو عاوي بندهنا تصالحان هدو قفك سو عاوية تقومينتي بقابكو سمين لها أما فيديو بيودرو أما يعني أو عاوية أنت من $10 هدية للسيو يعني ما فكر في عنبا مثلا إن التيم ككلية قبطان أو فكر كان عندك كيلو قد بين محين لا تهاي هدي هذه فلن هالي سوقر هدا ما كل فعنا أديه سنة ما يسوقر فكر في عن مركز كبعد التيم ككلية أيا يعني أرنتاس يعني سيدا هذا وفكر في عن ها وفكر أن حلو أن